wali way noo sii socdaan barnaamijku iyo wakiiladii ururada oo meesha inoo fadhiya markana waxaan u yeeri doonaa insha Allah wax badanna inaga siin doona waa ninaad wada garanaysaan mudane Maxamed Colaad oo ah hoggaanka arrimaha dabagalka iyo xiriirka ee golaha danta Soomaalida isla markaana wuxuu ahaa Maxamed Colaad la taliyihii dhanka saxaafadda ee Mustafa una adkaysan waayay maamulkaasu sida uu socdo kana tagay waqti hore insha Allah isaga inoo faahfaahin doona xaaladda deegaanka ku sugan ku soo dhaw mudane Maxamed Colaad ما سنت عبد الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو غورسة دمان آد بعد ما هتسنتين مدنياش هي مروين كسقيب كلا شركة يو وحجرتك سياسيين تأورد كلا دون دمان كوميونيتي مينيابوليس يدت كمال فوق كيمت دت كقاركي بمال فوق كيمت إلا دالاس تكساس آد بعد ما سنتين مركورة مركلا بعد waxaan dhamaan jeclaan lahaa hadana inaan halkan fariin uga gudbiyo dhamaan shacabka deegaanka Soomaalida xaaladaha adag ee deegaanku ku jiro haday tahay dhinaca abaaraha oo waqtigan inta abaar dhaaftay macaluul ay isu bedeshay oo deegaanka iyo degmooyinkiisa oo dhan ay hadda ku jiraan marxalad aad u adag oo duunyadii iyo xoolihii inta dhamaadeen ay dadkii dhamaanayaan nasiib darrada jirta waxay tahay oo ilaa imikana laga sheekeenin dadkeena inta halkan joogtaan jeclaan lahaa inay xisaabta ku darsadaan oo isku imaatinkeena iyo wax alaala wixii dadaal iyo hawleen wadno markaan leenahay deegaanka samata bixintiisa inayna maaragtay halqabsi iyo erowna inay iska ahayn inay actually deegaanka iyo shacabkiisu samata bixin uu baahan yahay inay dadku dareemaan deegaanka degmo iyo tuulo deegaanka gobol aanay dad u dhimanin tobanka gobol uu saameeyay sagaalka gobol uu saameeyay laba gobol oo gobolka Faafan iyo gobolka City oo gobolada kala dhaama mooyaane sideedda gobol ama sagaalka gobol ee kale gobol aan dhimasho laga soo sheegin ma jiro ilaa imikana xukuumaddu waxay ku mashquulsan tahay qarinta iyo duugista iyo ma aragtay ka jahwareerinta shacabka xaaladda abaareed ee dhabteed deegaanka ka jirta inay ka majar habaabiyaan deegaanka degmooyinka qaarkeed 4-5 qof qoysas meelaha qaarkeed ay dad qoys dhan oo qof iyo caruurtiisii iyo xaaskiisii oo dhan ay saamisay gaadhay marka waxaan jeclaan lahaa koow inaan garanno markaan leenahay deegaanka samata bixintiisa in deegaanku xaalad abaareed uu ku jiro samata bixin u baahan yahay laba in deegaanku xaalad cakiran oo siyaasadeed uu ku jiro oo samata bixin u baahan yahay iyadana waxa weeye tala xumo abaar ka daran bay tira Soomaalidu deegaanka maanta dhibaatada abaar kale siyaasadeed baa u dheer waxa u dheer marxalad deegaanka hogaamintiisii waxa uu ku mashquulsan yahay ay tahay shacabkiisa kala qaybintiisa iyo majara habaabintiisa iyo shacabkiisa iska horkeenisteeda iyo waxa la wixii xoog iyo hanti dawladeed oo in la geliyo sida shacabka loo caburin lahaa loo aamusin lahaa dantooda iyo aayahooda inayna shacabku ka tashanin sidii looga jahwareeri lahaa xaaladda kale abaaraha iyo maamul xumada u dheer waxa weeye deegaankii xaalad kale wuxuu ku jiraa khayraadkii deegaanka hadduu yahay khayraadka diin iyo hadduu tahay khayraadkii miisaaniyadeeda deegaankaba waqti waxa uu ku jiraa musuq iyo maasuq iyo waxa musuq maasuq aan lagu tilmaami karin oo xatooya oo dadka shilimaadkii yaraa ee magacooda lagu yaboohay miisaaniyad magacooda loogu qabtay baahiyooda asaasiga iyo kaabayaasha dhaqaale iyo adeegyada bulshada loogu talagalay in la siiyo uu deegaankii u gacan kale shabakad yar oo mar dhinac xarakaad diimeed u eg oo sheeganaya oo magacyo isu sameeya dhinaca kalena u eg shabako ku heshiisay dan khaas iyo arrimo khaas oo noqotay in deegaanka dhaqaalihiisii iyo siyaasadiisii iyo taladiisii oo dhan ay gacanta u gashay aad muddo deegaanka ay joogaan inuuna deegaankoodii ahayn oo la xajeclo iyo berri iyo mustaqbalka iyo caruurtooda kale iyo jiilashan ka dambeeyay aad muddo sida ula xisaabtameen inaan naxariis iyo xisaab ay noogu jiro oo deegaanka maanta hantidiisii xawaalado min Nairobi ilaa Turkey wuxuu hanti shacabkaasi lahaa oo dhan
xatooyo iyo boob bilaa xisaabi intuu ka taagan yahay aan maanta u garano inuuna saameynayn inuu deegaanka dadka maanta jooga laakiin mustaqbalka jiilasha soo socda laftigooda inuu yahay waxa la xadayo ee la boobayo ee dhibaatada lagu hayo inaan iyadna garano waxa kaloo iyadna jeclaan lahaa shacabku oo fariin halkan uga gudbin lahaan dheereen inaan garano in midnimadeena iyo muwaafaqadeena iyo dadkeena isku duubnidiisu inuu yahay wadada kaliya wax alaala wixii dhibaataa ee maanta aan u aragnay deegaanku inuu u baahan yahay in laga samata bixiyo inay midnimada iyo muwaafaqada dadkan ay daruurita dadka markaan la kaftamayaan idhaahdaa Mustafa haddii hal shay laga faa'iiday waxa laga faa'iiday dadku isku keenay dhibkiisa iyo dhibaatada deegaanka ka taagan iyo maamul xumada iyo munaafaqada taala iyo deegaanka sida mustaqbal ifayay oo isbedel ahaa oo la rabay inuu dadkan talaabiyo uu mustaqbalkan meesha ka fiican dadka uu horseedo inuu dadka dib u dhacayo iyo hagardaamo uu ku keenay hal shay haddii laga faa'iiday waxa ahayd inuu yahay inuu dadka isku keenay maanta halkan golahan waxa jooga tira ka badan 3 urur iyo garabkii xisbiga BB-da waliba iyaduna ka maqnayn oo xubnihiisii hadeen ahayn halkan dadka halkan joogay laakiin ay yihiin dad sympathize gareynaya ama aragtida ama fikirka u taagan yahay in wax la saxo oo wixii la lahaa uu khaldamay la saxo dad badan oo la wadaagay meesha joogan marka waxaan oran lahaa hawsha taalay hawl yar maaha dadaal badan baa u baahan tahay ka go'naansho u baahan tahay samir badan baa u baahan tahay iskaashi badan baa u baahan tahay tala badan iyo fikir iyo caqli la isku keeno u baahan tahay habeeno badan oo sidan oo kale oo winter night in Minneapolis oo weatherku sidaad aragtay yahay qof walba inuu duruuf iyo hawlo iyo dano uu saacidi lahaa uu ka soo tagay ayay u baahan tahay marka aan jeclaan lahaa tani waa bilow shirkeenii ka horeeyay shirkii labaad ee nooga xigay weeye waa shirkii ka ballaaran shirka qurux badan oo shacabku ay dareemayaan ka go'naansho intii ay dareemayaan in ka badan inay dareemayaan marka waxaan jeclaan lahaa dad badan baa iga dambeeya speakers badan baa iga dambeeya dad badan oo fariimo badan oo ay dareen ku jirto inay soo gudbiyaan baa jira marka waxaan jeclaan lahaa midnimadeena iyo muwaafaqadeena iyo isku xidhnaanshadeena fadlan hayno adkayno haynan garano inuu dadaalkani bilow yahay maanta hana dhibaatada meesha taagala iyo xaaladda la doonayo in dadkan laga samata bixiyo isku imaatin iyo hal mid iyo mid labaatoona mid ku fursanaysa ma waa mid u baahan in deegaanka shacabka ku jira la kiciyo la abaabulo la isku xidho dantooda loo tuhiyo inaguna dadaalkeena iyo ka go'naanshadeena ay sii laba jibaarno aad baad mahadsantiin waaye kaas wuxuu ahaa maxamed colaad oo ka tirsan ururka golaha danta Soomaalida oo ah hoggaanka arrimaha dibadda iyo xiriirka ah golaha danta Soomaalida